baardheer waxaa ka dhacay dhowaanahanba waxaa taagnaa khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland. Dowladda federaalka waxay kusoo duushay Jubbaland si gardarro ah. Horey waxaad ogeyd wixii ooga dhacay Raas Kaamboni. Jabkii Raas Kaamboni dowladda ka soo gaaray waxay balanbii ka dhigatay inay kusoo duusho haddana mar labaad gobolka Gedo. Waxaa gabi ahaanba dowlan lagu soo qaaday nidaamkii dowliga ahaa oo dhisnaa maamuladii degmooyinka ayada oo shuruuc loo marayo aysan jirin, si sharci darro ah oo dastuurkii lagu tumanayo. Degmada Baardheer waxaa ka dhacay gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo ee Jubbaland oo ay xilkii hore Jubbaland ooga qaaday ayna isticmaalaysa dowladda federaalka ayaa warqado soo siiyey dad u dhashay degmada Baardheer, isla markaana ay fulinaysa dowladda federaalka ah. Waxaad ogeyd inay gobolka ku sugnaayeen wafdi dowladda federaalka ka socdo gobolka oo ay ka jiraan daruufo kala gedisan, buundooyinkii go'an yihiin, intaasoo caqabadood jirto, wax dana dowladeed ah iyo wax horumar oo loo hayana aysan jirin, ayaa taa beddelkeeda la qaatay in bulshada la iska hor keeno, maamulada degmooyinka la bedelo ayada oo sifo sharci oo loo marayo aysan jirin, maarshaalow iyo militarinimo lagu qabsado, dastuurkii iyo nidaamkii iyo xeerkii dowladnimada ahaa laga tillaabsado. Muddo hadda 9 cisho ah degmada Baardheer waxaa ka taagnaa dhibaato ay ku hayeen niman wakiil ooga ah dowladda federaalka gobolkan oo ay u soo dirsatay oo wafdi oo uu hogaaminaya Fartaag iyo sidoo kaleeto rag saraakiil oo la shaqeynaya oo military ah. Waxaa lagu soo duulay maamulkii degmada, waxaa loo adeegsaday ciidamo military ah. Waxaa 9 beri hareereysnaa xaruntii degmada ee uu maamulka degmada ee dowlad goboleedka Jubbaland ku shaqeynaya ee degmada Baardheer. Markii aan aragnay inay xabad ma ogi xal kale uusan jirin, 3 hooyadood oo dowliga ahaa ee degmada joogay oo dowladda federaalka u joogo nabad sugidda iyo booliiskii militariga ahna loo adeegsanaya in sifo sharci darro ah iyo dana siyaasadeed loo isticmaalo laguna burburiyo maamulkii degmada ayaa waxaan qaadanay, maadaama haddee ciidamo dowlad goboleedka Jubbaland ay maanta u joogin gobolka, gaar ahaan hadda degmadan aan aniga gudoomiyaha ka ahay, ciidamadii aniga ilaalada ii ahaa iyo maamulkii degmadana lagu hareereeyey ciidan military iyo boolis iyo nabad sugid isugu jiro. Markaan aragnay in wax dana dowladeed ah iyo wax dastuur la ilaalinayo iyo nidaam dowladeed midna uusan jirin, lana isticmaalay ciidamada militariga, maamulkiina loo adeegsaday kala furfur iyo in dhaqaale lagu bixiyo. Intaa kadib oo maamulka degmada iyo xaruntiisii la gaarsiiyey in ciidamo lagu hareereeyo, xoog lagu qabsado, laga jaro korontadii iyo biyihii laga jaro, waxa loo adeegsanayo oo falka fulinayeen ay yihiin ciidamadii amniga ilaalinayay ee loogu talagalay cadowga inay la dagaalamaan ee ahaa ciidamadii dowladda ee federaalka. Intii halkaas ay wiilal walaalo ay ku dhiman lahaayeen oo dhiig lagu daadin lahaa, inaan xarunta ka baxno aana degna kala. Sidaa darteedna cidda sharci darrada samaysay lagula xisaabtami doono. Sidaa darteed baan aaga baxnay xaruntii. Waxaan marka halkan ka cadeynayaa anigoo ah gudoomiyihii degmada Baardheer ee dowlad goboleedka Jubbaland, sharciyadna u haysta, ayna jirin cid kale oo sheegan karta gudoomiyaha degmada Baardheer in ay dowladda federaalka oo nagu soo duushay ay nagala wareegtay xarumihii ayna burburisay nidaamkii dowliga ahaa oo dhisnaa. Annagana hadda aan xaruntii meel ka madax bannaan aan deganahay aniga iyo maamulkii degmada iyo ciidamadii nala socday, laguna xisaabtami doono wixii sharci darro oo dhacay. aad iyo aad baa u mahadsantahay.